wardeg deg ah oo iminka soo baxaya waxa uu tilmaamayaa in Sayid Cali Macalin Daawud oo aad wada garanaysaan oo ahay ninkii xaaskiisii nolosha ku gubay Luul Cabdilcasiis in uu mar kale ka soo muuqan doono maxkamadaha dalka ama ay suurtagal tahayba inuu ka badbaado dil toogasho ah. gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Tabaan oo wax laga weydiiyay xaaladaha iyo kiiska Sayid Cali Macalin Daawud ayaa tilmaamay in Sayid Cali Macalin Daawud ay laba option u furan tahay ama laba wado u furan tahay labadaasi wado oo kala ah in lagu fuliyo xukunnadii ay ku rideen maxkamadda gobolka Banaadir maxkamadda rafcaan gobolka Banaadir iyo maxkamadda sare ee dalka iyo sidoo kale in uu mar kale ka qaato kiiskaasi oo dhan rafcaan oo uu mar kale ka soo muuqdo maxkamadaha dalka. Sayid Cali Macalin Daawud waxa uu ahay ninkii nolosha ku gubay xaaskiisii Luul Cabdilcasiis oo muddo 32 cisho ku jirtay talaajada taasi oo intaasi loo baadi goobayay in ay hesho cadaalad. Luul Cabdilcasiis oo iminka ah marxuumad lana aasay kol horeeto ayaa iminka waxa markaas wararku ay tilmaamayaan in Sayid Cali Macalin Daawud oo saddexda maxkamadood ee dalka isku soo maray inay suurtagal tahay inuu ka badbaado xukunkii lagu fuliyay kaasi oo ahaa qisaasta Luul Cabdilcasiis balse waxa jirta in mar kale ay cabsi ka qabaan dadkii oo ka dhalatay Luul Cabdilcasiis in Sayid Cali Macalin Daawud oo ka badbaadi doono dilkii toogashada ahay ee ku xukumeen maxkamadihii la saaray. عين العافية هوسبيتال وحاو كادا وينيا حنونك باباسيركا مدرمي سانا بر حنون عاجز جوكتا حنون دنك هوسا سحردو كوغو ادك إيو حميري دنك غوشا هدبا اسكاقا عربتر حنونك باباسيركا مدكا يرشن إيو طبان مالين أديقون وح قلينا لغوغو سمين وحي فافاهينا كلا حرير تلفنا دا كلا إبر لحال هل صدن يتضبو سيديتن يسدح أما إبر لحال هل صدن يتضبو سيديتن يليح أما لمبركا قابن ee 3 7 7